taas horta intaasan uga baxay laakiin waxaan rabaa inaan ummadda soomaaliyeed u baartaan walaalkeen haddou dhiiridaas leeyahayno caawa meeshan ka sheego 30 jir ahuu yiri 30 milyan leh abidkiisna wasaaraddaas maaliyadda meelaan ahayn oo ka shaqeeyo subax u shaqo tegey ma jirto xoolahan faraha badan oo leeyahay bal caawa ha la sheer gareeyo ummadda soomaaliyeed 30 milyan uu yiri 30 asa afkiis ka shay zakan ka baxsho yiri weyn zaka laga bixina waa ifan soma waan naqaanaa asiya kooxdiisi hal habeenkii doorashada hal habeen waxay bixiyeen 13 milyan oo dollar markaasay 2 milyan u baahdeen inay deyn soo qaateen deynkay ka soo qaateen waa la yaqaan waxaasoo lacag intay ka timid kooxdiisii asiga waxay kharash gareeyeen 45 milyan oo dollar hebel rid hebel soo saar ay ku kharash gareeyeen habeenkaasna waa bayroolkii adduunka ugu weynaa lacag la bixiyo kii ugu weyneeday baxsheen lacagdaas intay ka timid aniga guri kuma lihi beledkan laakiin xeebtii waddanka oo la wada lahaa asaa qaatay dhulkii oo dhan asaa qaatay intaasaa gurye ka dhisay intaasoo hoteello leeyahay waa 30 jir waa ifan soma lacagtan intuu ka keen weligiisna aabihiisna wax ugama dhiman oo nin lacag lama dhalin intuu ka keena waxaan rabaa universal adigu waa eedeeyey asiguna waa eedeeyey inaad baartaanaan rabaa oo ummadda soomaaliyeed oo na dhegaysanayso caawo meel kasta naga dhegaysanayso aa u soo bandhigtaan oo aad tiraahdaan ninkaana waxaanuu sheegay markaan baarnana waxaan noo soo baxay aaday arrintaas u fiican tahay qofku waa iska soo fadhiisan karaa waxbaa iska sheegi karaa haddaan u soo noqdo eedeynta madaxweynaha la eedeeyey meel kale yaan laga raadinin dadkan wax yaray ku qanceen ummadda soomaalida halligaaya wax yaray ku qanceen oo ah madaxweynaha in tashwiish lagu furo si yacni tii dhiiqaday ahayd oo ay mas-uulka ka ahaayeen iyo tamaanta jirto ra'yi caalamka la yiraahdo waa isku mid intaas yartaa ay waddanku baabi'inayo iyo inay fursad helaan ay ku soo noqdaan waxaan rabaa shacabka soomaaliya inay wejiyada fiiriyaan berito 2020 waa laydii imaanayo codaa laydii weydiisanayo haddii eebed wejiyada